أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan ka salaamayaa walaalahayga Soomaaliyeed kusoo dhawaada barnaamijkeeni deeqa wellness walaashin deeqa wellness walaalahayga Soomaali dhinac walba ka joogtiin dunida waadin salaamay Allahumma salli ala Muhammad waxaan caaw ka hadlayaa horta waxaan nii sheegi lahaa idinkoo iga raaliya barnaamijkayga haddii soo gaaro walaal aad daawatiin fadlan walaalo share and like and subscribe my channel please walaal gacaliso walaalayaal gacaliso kusoo dhawaada caaw mawduucay waxa weeyaan waxaan ka hadlayaa mawduucay wuxuu yahay maamooyinka guursada wiilasha yaryar walaalo maxaad horta aad u caydaan hadday Yurubta noqoto hadday Mareykan noqoto hadday Soomaaliya noqoto whatever meesha doontaba ha noqotee maxaa walaalo walaashin marna hooyadin marna walaasha ka yar marna walaasha ka weyn hadday wiil yar guursato walaal maxaa ugu caayisaan maxaa u bahdilasaan maxaad moralka ugu dilaysaan maxaad gabar maanta walaasha ka soo bixi lahaydeen amba gabar yar ah noqotaan gabar halka u soo hiilin lahaydeen ilaa rag wuu isku hiiliyaan maxaa uga bahdilasaan sharafta aad uga qaadasaan maxaa uga xasdisaan hadduu ninka ku jeclaaday wiilkii raaba shalay ku doortay jacaylku ku doortay uu iyadu ku rabo uu doonayo uu yiri xabiib waan ku jeclahay waay inaga Soomaalideena aad reebaadiye walaale loo yahay ma ishi kartaan su'aashaas iga soo jawaab kumadkan igu soo qora waxaan la hadlayaa dadweynaha halka Soomaaliyeed ee siiba dumarkan ka hadlayaa ninka ragga ah ee odayga ah markuu soo guursado gabar yar oo 15 jir waad aragteen ma caayisaan ma habaarsan ma xumaynas laakiin maama wiil 20 jir hadii 20 sano ka weynta of 10 sano ka weynta oo 5 sano ka weynta whatever maxaa ka galay ayaga jacayl isku doontay ayaga kalgacayl isku doontay ayaga farxad isku doontay ilaahay ku inagu khayr ugu duceeya ku farxa maxaa ha loo duceeyo ha lagu farxo ha la soo dhaweeyo walaalayaal why at negative mind aad u haysataan aad u bahdilasaan aad moralka ugu jibinaysaan subhanallah aad u leedin habartan gabowd wallahi walwad waxaan program baan ka daawanayay dadka relationship ka haysta ee xiriirka imka wada wata waad ayeeyo 62 jir ah wiil dhalinyaro 28 jir xiriir la yeelatay ee guursanaysa waa actressada inaan soo raadiyo sawirkan waa idin soo gelin doona hadduu alla ka dhigo 34 sano ka weyn tahay whatever maxaa keenaya jacaylka keenaya kalgacaylka keenaya jacaylkuna indha ma qabo taas waxa la dhahaa jacayl indha ma qabo ma garateen jacaylna xaasidma way hore loo dhahay marka walaal waxa idin sheegay dhinaca positive ka fakara markasta waxa isku daydaan inaga waxa Soomaaliya maanta sida u burburshay ee Soomaaliya sida u galay waa negative mind wallahi beena maahin qofku inuu buugaagta cilmi nafsiga akhristo weeyaan qofku inuu wax isku mashquulisid sportiga leeni sheegay maskaxda neefta ogaada sportiga dabaasha maskaxda u fiican waxyaalaha soo dhan maskaxda ay u fiican yihiin ma sha Allah Yurubtan iyo dadkan maxay nooga hormareen waayo buugaga cilmi nafsiga akhristaan wax barashadoodu way ku dadaalaan ma sha Allah ya maanta haduu soo islaamka cadaanka jannada sayagaaba nooga horeeyaba inagoo islaam isku sheegana ma garata inagoo islaam isku sheegana ba dambi dubli dambi lama laab 10 jar laab haysana laakiin ninka cadaanku barmarka soo jannada saa kaaga horeeya beena lama sheego cilmi nafsi buugaagta waxay bartaan cilmi nafsiga waxay bartaan sportiga suubiyaan wax barashadoodu waa heer sare ma sha Allah diinu bun haysan laakiin uu ka dambi yar yahay marka idinka inaad sa u fikirtaan weeyaan oo sida nolosha uga fikirtaan oo horumarka ka fikirtaan walaalayaal oo just ka fikirtaan maxaan taransanaa maxaan qabsanaa mawduuca intaas ku eegyahay waxaanu ku heesayaa jacayl baan la lawayaa malik baan xigsanayaa malugooyadiisiyo jacayl baan la liitaa malik baan xirkow galay ma garateen markaas jacayl xaasimi way hore loo dhahay fadlan waanadaas iga tahay waa walaashiin kusoo dhawaada mawduucayga iyo barnaamijkayga waxaan jeclahay positive mind wallahi markasna waxaan jeclahay dhinaca wanaaga in nolosha laga eego dhinaca xun intaad wax ka fiirin lahayd be positive
بوزيتيفka markasta nolosha ka fiiri waxa fiicanna dhinaca nolosha ka fiiri ma garateen mawduuc kale oo soo deynaya arrin la soo qabsaday gabar walaasheena insha Allah waqti hadaan bari helo waan la soo qaybsanaya hadduu Allah idmo biidmillaah waa arrin dhacday qiso dhacdo oo run ah waxaan kulul wallahi ma sha Allah gabar ba ila soo qaybsatay tiri walaalo maxay haydeenay iisoo noo soo daa hadduu Allah ka dhigo gabdhana way comment-ka igu soo qoreen arrimaha qisooyinka dhacay noo soo daa waan iisoo deynaya ma garateen walaal khayr aan idhaafay hameen wanaagsan oo waxaan soo bariya waano insha Allah programkeena kale khayr aan idhaafay cafi sameysa ma akhri adun aniga waxaan jeclay be positive always and positive mind aan jeclay wallahi ma sha Allah khayr aan idhaafay